من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي وحن إن شاء الله تعالى ما أنت كسو قادم دونا موضوعا إساقاهي أحكامتا كسو أرورتي صلاة سفر كأه intii aanu ka gaarna in sha allahu tacaala waxaan mahad ballaan u soo jeedinayaa intaana mawduuca bilaabin walaalaha Somali Media oo barnaamijkan noo fududeeyay ama noo ogolaaday inaanu dadweynaha ilaahay diintiisa gaarsiino oo waliba ayna soo wacaan oo soo xiriiraan iyo waxay su'aalo ka qabana weydiinaya. inta ka bacdi ayuha alikhwa wal akhawaat, sideen la soconno ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada markuu farad yeelayay oo waajib ka dhigayay Allah subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa si toos ah uga soo qaatay. seen la soconno sharciga ama axkaamta sharciga ah oo kale dhammaantood Allah subxaanahu wa tacaala waa sida Jibriil ayaa u ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam soo gaarsiinayay. salaada habeenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey sida Allah subxaanahu wa tacaala quraankiisa ku leeyahay: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آياتاسي الله سبحانه وتعالى وحو كتر ماما يا مركو النبي عليه الصلاة والسلام وديلميي قصداس لجراهدوه الإسراء والمعراج وددك انتظر بدن كدرسيين أيا النبي عليه الصلاة والسلام لوgu soo siiyay ama loogu soo dhiibay salaadaha. marka waxay ku tusaysaa arinka isaga hay salaada maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam uu safar dheer u galay oo Allah subxaanahu wa tacaala si toos uga soo qaatay salaada. waxay ku tusaysaa makaanada iyo sharafta iyo qiimaha iyo weynaanta ee leedahay salaadu. nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo qaatay ka bacdina Jibriil ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tujiyay ama tukiyay isagoo baraya oo u sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtiyada awqaada salaada. ومع ذلك بن قرآن كوحنا أمريا إن إسلاد أغنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة إلى آخره إلى آياتها كلا دوان كسر أرض الصلاة. صلاة إن لأوجب قرآن كودها نوشيجيا لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين وحين كبرنا وكأرجني نحلجا يقاب كلا تكنايو يرجعه أنت أيهين لو تكنايو. مركب وحين ما أنت إن شاء الله تعالى تلمام دونا أحكامتها kusoo aroortay salaada safarka ah iyadoo ay badatay sida walaalaha Somali Media noo sheegeen weydiinta la soo weydiinayo ahkaam sida dadka qofka safarka ku jira iyo wixii la midka ah. san la soconana Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala salaada wuxuu ka dhigay qofka mu'minka ahi uu ku qoray waqti go'an Allah subhanahu wa ta'ala buu ugu qoray. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث waxa ku leeyahay waxa u horeeya oo maalinta qiyaamaha waxa u horeeya oo qofka la weydiinayo qofka acmaashiisa waxa u horeeya laga weydiinayo waxa weeye salaada weeyaan. haddii hagaagsanaado waxa ka sii dambeeya ayaa hagaagsanaanaya. laakiin qofka haddii salaadiisa xumaato oo iska daabal inuu maaragtay xataa googooya salaada isaga tagay oo qofkaas uu taarik salaad noqday oo salaadii laga waayay qofka isaga ahay qof Allah subxaanahu wa ta'ala agtiisa u yaalnimo ah. dadka loo yaqaano mushrikiinta ama gaalada marka Allah subxaanahu wa ta'ala quraankiisa ku yiri ma salakakum fi saqar Allah tilmaamayo waxa la weydiinaya dadka ahlu naarka ah waxa la weydiinaya oo lagu oranaya saqara maxaa idin galiyay naarta saqara loo yaqaan maxaa idin galiyay markaas waxay ku leen qaalu lam nakum min al-musallin anagu ma aanu ahayn kuwa tukada ma aanu ahayn. salaadu marka wax aad iyo aad muhiim weeyaan waxa la doonayo qofku inuu barto ahkaamteeda xilliga uu nag yahay ama uu joogo uu degan yahay magaaladiisa iyo deegaankiisa iyo xilliga uu safarka aadaba labadaba. waxa jira marka miqdaar loo sameeyay loo gooyay qofku
إلى قدر انتهى لك أي صلاة سوق قابين كرا مثلا سفر بهذه مقالة من يابلس بكتري سفر بهذه سفر كهذه إلى مقال جرب أو قوة جبيسا قف كاس صلاة إنه سوق قابيه أو أحكام سفر قادنية وح علماء يرهدان marka nusuusta eegeen waxay ku qorsheeyeen ilaa 83 kilomitir ka loo isticmaalo ilaa 83 kilomitir hadii safarka aad aadaysa uu yahay qofka waxa uu noqonaya uu qaadanaya ahkaamta safarka ayuu qaadanaya oo ahkaamta safarkana waxa weeyaan uga tagi doono wax kamid ah ka hadli doono marka waxa raba qofku inuu ku fikiro marka uu safarka aadayo maxay tahay xilliga iyo qadarta maaragtay aad safarka u socota magaalada weeyaan أحكامتي سفر كمية هو واجبة وان قادنايا مس أحكامتي مارتي إن المجالات الجوجا أما الدجاج الجوجا ين قادنايا قفكم مركوه رئيستا إنه كفكر ويان وحن أنس بن مالك أورنج النبي عليه الصلاة والسلام وحها إذا خرج ثلاثة أميال أو فرسخ صدح ميل أما صدح فرسخ أما هل فرسخ نبي عليه الصلاة والسلام مركو صعود سفر كآذو قصر الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وسوق بنجري وصلى ركعتين إلا بركع تكنجري marka culimadu waxay yaani ku qiimeeyeen inay tahay qadarka salaad lagu soo gaabinaya 83 kilomitir ila waxa weeyaan u malnaya ila 50 mayl oo kale maylka hadda isticmaalno waddanka laga isticmaalo ila 50 mayl meelaha hadda safar u aadaysid waxa weeye qofka isaga wuxuu qaadanay ahkaamta safarka imaam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala ba wuxuu leeyahay waxba fiican ba in amyaashan iyo kilomitiradan iyo waxa laga tago oo qofka la qaato curfiga la isticmaalo curfiga wuxuu ka wadaa wixii dadku ay safar u yaqaaniin inaad safar u qaadato wixii dadku ay safar u aqoonna inaad ka dhigto qof nagan oo joogo oo kale marba hadii qofku ilaa waa safraya waxba inaan loo fiiriyo ma kilomitir iyo waxaas maadaama uu safar aadayo xiranayo qofkaasi ahkaamtii safarka ayaa ku dareeraysa oo qaadanaya waxay kale culimadu ka hadlaan oo ay isweydiiyaan qofka ilaa meeqa qofka musaafirka ahi ilaa maxaa loo fududeeyay inuu mataqaana safarkiisa inuu qaato ama goormu bilaabi kara qofkaasi safarka ahkaamta uu bilaabi kara مثلا tusaale ahaan caawa maqribkii anoo duhur jooga baan rabaa caawa inaan cishaha ka bacdi safro ama maqribka ka bacdi inaan safro hadda aan magaaladii joogo miyaan sii bilaabaya ahkaamtii oo duhurkii iyo casarkii miyaan sii xiriirinaya mise u kaadinaya waxay leeyihiin culimadu qofka waxa loo shardiyeeyaa inuu qasriga la yimaado salaada uu gaabinayo ama ahkaamta safarka inuu la yimaado waxa loo shardiyeeyaa magaalada uu deganaa markuu ka baxo qofku magaalada uu deganaa inuu ka baxo marka uu ka dhaxbaxo magaalada uu deganaa ayuu ahkaamtii loogu talagalay oo safarka ayuu qaadanaya qofka waxa ku dareeraya ahkaamtii safarka macnaha wuxuu ka baxaya ahkaamtii uu qaadan lahaa markuu yahay qofka magaalada degan uu yahay ahkaamta waa badan tahay waxa kamida culimadu mataqaana yiraahdaan salaadaha afarta مثلا salaadaha loo yaqaano rubaaciyadka loo yaqaano afarta ragcadood sida duhurka iyo casarka iyo cishaha kale qofku inuu soo gaabiyo oo laba ragcadood ka dhigo